الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي السود وهذا وعمر علي حسن. waxaan rabaa caawa inaan mar kale idinla wadaago imtixaan testi ah ama tijaabo ah oo xalay aan galnay. waxaa ilaahay u suura geliyay inay ka qayb galaan ilaa arday gaarayso 66 qof ayaa ka qayb gashay imtixaankaas. 66daasi arday ayaa ilaahay u suura geliyay in ay ka qayb galaan imtixaankaasi oo ay helaan natiijo qof walba markaasi uu xaq u lahaa in uu markaasi uu helo. ardayda ka qayb gashay haddii aan fiirino iyo su'aalaha sida ay ahaayeen, marka aan fiirino su'aalaha sida ay ahaayeen, waxay ahaayeen su'aalaha su-aasha koowaad waxay ahayd full nameka waxaa la qoraayay magacaada, qofka magaciisa saddexan halkaas ku qoraayay midda koowaad, laakiin kama mid ahayn wax buundo laguma qaadanaynin. sidoo kaleeto qofka waxaa laga rabay inuu qoro where you live, halka uu qofka ku nool yahay. dadka inta badan way soo qoreen Muqdisho, Hargeysa, Burco, Boorame, Jigjiga iyo magaalo kaleeto fara badan. haddii aan magaaladaada ka tagay waxba ha u qaadanin. intaas markaan kaga gudubno su'aalihii aan u gudubno, su-aasha koowaad waxay ahayd an individual or a business that purchases another company's goods or service is called waxaa lagu magacaabaa customer ayay ahayd. marka jawaabta saxda ah waxaa la dooranayay customer. marka waa qofka ama ganacsiga iibsada shirkad ama adeeg shirkad badeeco shirkad ama adeeg shirkad ay leedahay ayaa qofkaas ayaa waxaa lagu magacaabaa dhahnay customer. jawaabta saxda marka waxay ahayd customer. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay businessman doorteen ama ay teacher doorteen. marka jawaabta saxda ahayd waxay ahayd customer. su-aasha labaad marka aan tagno waxay ahayd ama waxay u dhaceysay an action of assisting customers and working on behalf of business firm is called waxaa lagu magacaabaa customer care. ficilka lagu caawinayo macaamiisha ayaa adiga oo matalayay kambanigaada ama shirkadaada ayaa waxaa lagu magacaabaa customer care. sax waaye, waana midda koowaad ayay ahayd oo ah customer care. dad fara badan way saxeen, laga yaaba dad qaarna inay qaldeen. su-aasha xigta marka aan tagno waxay u dhaceysay talking that an extra step to help without being asking. in aad dadaal dheeriya sameyso adiga oo doonaya inaad ku caawiso macmiilkaada waxaa loo yaqaanaa good customer service, waana jawaabta saxda ah. waxay kaloo meesha ku qornaa good business plan iyo good company. marka jawaabta saxda waxay ahayd good customer service. su-aasha xigta waxay u dhaceysay the best publicity of any organization can have. xayisiinta ama waxa ugu wanaagsan ee shirkad ay ku faani karto waxay tahay aan dhahnay good manager, waa maamulo wanaagsan. good customer satisfied customer waa macaamiil qanacsan. good employees, shaqaale wanaagsan. marka wax ugu wanaagsan ay ku faani karto waa macaamiil qanacsan. maamuluhu wuu wanaagsanaan karaa, shaqaaluhu way wanaagsanaan karaa, laakiin shirkadu waxaa usii wanaagsan in macaamiil qanacsan ay leedahay. su-aasha ugu dambeyso ee imtixaankeena ama testigeena xalay wuxuu ahaa customer unwilling to listen to what you have to say is called loyal customer, difficult customer iyo external customer. macmiil aan marna rajeynaynin ama aanan rabin in uu ku dhageysto ama in uu dhageysto wax aad leedahay waxaa loo yaqaanaa loyal customer, difficult customer iyo external customer. jawaabta saxdeed waxay ahayd difficult customer. inta badan ardaydu waa ay saxeen. marka aan intaas kaga gudubno imtixaanka waxaa lagu qaadanayay 25 buundo. 25 buundo arday inta badan way heleen. celcelis ahaan ardayda intooda badan waxa ay ku guuleysteen in imtixaankii 5 su'aalaha oo 25 dhibcood lagu saxayay inay wada helaan. marka aad umahadsantihiin. ardayda halkaan ay ku qoran tahay dad fara badan halkaan ku qoran oo ka jawaabay, waa dareemi kartaa 25 wax dhan. ardaygan wuxuu keensaday 20 ka gudub. arday kaleeto waxaa jiray ardaygan 15 uu keensaday isagana. inta kale kan 20 uu keensaday. ka soco 10 ardaygan keensaday. ku celis u baahan yahay, waxaa dhici karta ardayda dambe inuu yahay. ardaygan kale 15 uu keensaday, kan 20 uu keensaday. inta kale ardayda marka aad fiiriso ardaygan 20 uu keensaday, inta ardaygan 20 uu keensaday. inta kale ardayda 15
ardaygan 5 uu keensaday. Ardaygan laga yaabo inuusan fahmin ama dib inuu nooga soo biira laga yaabaa. Marka waxaan rajeynaya insha allah imtixaankaas wuxuu ahaa mid qiimeyn ah, inkastoo qish yar xalay mar ee dhacday haddana aan ka hortagnay. Aad u mahadsantihiin. imtixaankii tijaabada ahaa intaasaan kusoo koobaynaa warbixintiisii koobneyd. marka ardayda waxaan u rajeynayaa khayr fara badan in ay insha allah maadada 5 cashir kale inoo dhimanaan rajeynayaa. cashirka 6 caawa qaadanay. marka insha allah la soo akhriyo. imtixaanka ugu dambeeya aan geli doono wax qasha ma jiri doonto. sidoo kaleeto qofka markis lagu baasi doonaa jiro. markiskaas qofkii keensada shahaadadiisa waa heli doonaa si macnaha shuruud la'aan ah. ardayga aan markiskaas gaarin oo aan casharada soo daawanin oo casharada aan soo akhrinna xaq uma lahaan doono inaan shahaado siino, maadaama aan dadka la rabin inaan been ka sheegno wax cilmi uusan baranin. shahaadadeeda inaan bixino anaga iyo dhib nagu noqonaysaa, asagana uma fiicna. marka waxaan rajeynaya ardayda inay imtixaanka usoo diyaargaroobi doonaan imtixaanka dambe iyo in ay casharada si fiican usoo daawan doonaan. waxaa kaloo idiin sheegayaa ardayda waxaa laga yaabaa in ay sugayaan in aan aniga linkii groupka soo dhigo. arday walba waxaan ku wargelinaynaa oo weliba ka codsanaynaa in janalka uu subscribe saarto si wax walba oo lasoo dhigo ama cashar ama wargelin ama wax kaleeto oo halkaas ugala socdo. marka janalka youtube-ka booqo job skills linki koowaad marka lasoo dhigo kadib subscribe saaro, waxba kuma dhaafi doonaan insha allah. wax walba oo lasoo dhigo halkaas kala socon doonta. aad u mahadsantihiin. soo dhawaada.